ended where it began, 400 miles off the coast of Newfoundland. The great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. The Titanic is 2.5 miles beneath the surface. Scientists in a miniature submarine made the discovery early this morning. I think Titanic was one of those great mysteries. How could it just fall off the face of the earth? None of us really on the ship had any idea of how interested the world would be that we had found Titanic. Autour de moi, alors c'était la tempête, l'effervescence même. Tout le bateau est passé pour voir les images de la découverte. On est sur le Titanic. السلام عليكم habeenadii taariikhda ku kala beegnayd 14 bishii Abriil ee sanadii 1912 subaxdii 15 Abriil waxa dhacay shilkii burburiyay markabkii weynaa ee Titanic. wuxuu markabkan ka soo safray magaalada Southampton ee dalka England isagoo ku sii jeeday magaalada New York ee dalka Mareykanka. balse intuusan gaarin meesha uu socday waxa ku dhacay baraf weyn oo badda dhexdeeda ku samaysnaa sida ayuuna ku bilaabmay badweynta Atlantic. in ka badan 1500 qof ayaa ku dhintay biyaha inkastoo 700 oo ruux ay ka badbaadeen musiibadaasi. waxa dadkaasi badbaadiyay waxa uu ahaa xiriirka raadiyaha lagula hadlo. maxay ahayd wixii dhacay ee sababay in dadku ay ku dhintaan biyaha? abaara 12:40 galabnimo 14 bishii Abriil sanadii 1912 xilli uu markabku ka talaabayay badweynta Atlantika ayuu si lama filaan ugu dhacay dhagax weyn oo baraf ahaa. markabkii weynaa isla markiiba dhaxda ayuu ka dilaacay, biyihii ayaana bilaabay inay u soo dusaan. Thomas Andrews oo ah ninkii hindisay markabka Titanic wuu saarnaa markuu quusiyay markabka caanka ah. qasaarihii ka dhashay barafka dhagaxa ah ayuu qiimeynayay, wuxuuna kabtankii u sheegay in markabku uusan badbaadi doonin. Marconi oo ah raadiye dhinaca isgaarsiinta ee markabka ayuu dib bilaabay inuu diro fariimo lagu dalbanayo caawimaad. markii saacadu ahayd 12:15 daqiiqo ayaa bilaabatay dirista fariinta oo loo adeegsanayo qalabka telegraafka. hawshaasi ayaa la sheegay inay sabab u noqotay badbaadinta in ka badan 700 oo ruux markabka Titanic saarnaa. sargaalkii mas'uulka ka ahaa qaybta isgaarsiinta ee markabka Titanic, Jack Phillips, ayaa fariimo gurmad lagu cusanayo u diray maraakiibta kale ah Carpathia iyo Frankfurt. dabcan haddana qaldin dhawaaqa oo ku jiray badda waxa uu sheegay in markabkoodu uu baraf weyn ku dhacay uuna qarka u saaran yahay inuu quuso. waxa dadka rakaabka ah saarayna doomo yaryar, caruurta iyo haweenka ayaana muhiimad siinayna. koronto xilli kastoo hadda laga bilaabo way dami kartaa. dadkiina nacasyada ah isdiyaariya, dareenkununa ha joogo ayaa ka mid ah fariimihii ka imaaday Titanic. waxaan ka soo hadlaynaa markabka Titanic biyaha si xooli ah ayuu ugu soo qulqulayaa qolka matoorka ayuu yiri Jack Phillips. Jack Phillips muusan ka badbaadin shilka, marar badan waxaa la sheegaa inuu ahaa nin aad u dhiiran oo aad u caqli badan. maraakiibta kale xilligaasi ma aysan rumaysnayn in fariintani ka timid Titanic. korontadii waa ay gooday markay saacadii ku beegneed 2:10 habeenimo. qalabkii isgaarsiinta ee Marconi wuu shaqayn waayay maadaama aysan jirin wax koronto ah. qaybta hore ee markabkana waa ay quustay, qaybta dambena kor ayay isku janjeertay. 10 daqiiqo kadib markay saacadu ku beegneed 2:20 markabku labada dhinac ayuu u kala jabay, biyaha ayuuna quusay. 2 saacadood kadib markii ay labadii qaybood biyuhu u kala galeen ayaa yimid markabkii Carpathia oo soo gaaray goobta uu shilku ka dhacay. doomaha badbaadada ayaa lagu caabiyay dadka 700 oo ka mid ahaa dadkii saarnaa markabka Titanic. waxaa la qiyaasay in ka badan 1500 oo qof ay ku geeriyoodeen shilkaasi habeenkaasi dhacay. sababta ugu weyn ee dadku ku dhintayna waxay ahayd in biyaha ay baraf ahaayeen, cimiladuna aad u qabowbayd. markabkan cidna meesha uguma uusan imaan lahayn haddii marka hore aan dadaal la samayn lahayn oo dadka qaarkood la saari lahayn doomo la buufiyey oo ku meel gaar ah. maxaa xigay markaasi? haraadiga burburka Titanic waxaa sanadii 1986 laga helay mayl 740 mayl u jirta magaalada Newfoundland ee waddanka Canada. shirkadda RMS ee Titanic Royal Mail Ship ayaa sanadii 1980 codsatay in la soo saaro burburkii markabkii musiibada ku dhacay. tan iyo 1987 waxay shirkaddaasi biyaha hoostooda u dirtay naaquudayaal 8 jeer. ilaa haddana khubaradu baaritaan ayay sameynayaan, waxayna soo saareen qalab gaaraya 1500 oo ka mid yihiin lacago qalin ah iyo dahab. shirkadda RMS Titanic waxay sidoo kale qorsheynaysaa in rabot biyaha hoosteeda ku shaqeynaya u dirto halkaasi si la isugu dayo in la soo saaro qalabkii isgaarsiinta ee Marconi kaasoo sababay inay badbaadaan 100 ruux. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.